Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha qiimaha badan meel walba joogtaan waa salaamantiin waa walaalkii injineer kaafi cabdulaahi halka iga daawanaysa barteeda youtube-ka oo igu qoran magaca injineer kaafi cabdulaahi haddaba kusoo dhawaada muuqaalkayga maanta waxaan nagu bari doonaa wax loo yaqaano preposiciones de lugar waxaa loo yiraahdaa meeleynta goob shay markaan sheegayno shayga kaleto goobta uu ka yaalo hortiisa dhinaciisa midigtiisa bidixdiisa korkiisa hoostiisa u dhow ka fog ayaan ku baran doonaa Englishna waxaa lagu yiraahdaa preposition of place ilaa waxaan isla baran doonaa 12 preposition ama 12 meeleen goob oo goob aan ku tilmaami doono aan ku meeleen doono kan ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa encima de ama kale waxaan dhihi karnaa sobre de ama waxaan dhihi karnaa en saddexda waxaa lagu macneeyaa korkiisa shay kale markuu shay kale uu ka koreeyo ayaan ku tilmaamaynaa keena labaad waxaa loo yaqaanaa debaaqo de waxaa waaye waa hoostiisa marka shaygan kale aan sheegayno shay kale uu ka hooseeyo waxaan leenahay debaaqo de hadduu dhinaciisa yaalo waxaan leenahay wax loo yaqaano alado de waxaa waaye waa dhinaciisa haddaan u leenahay wuxuu u dhexeeyaa laba shay u dhexeeyaan waxaan leenahay entre de maxaa waaye wuxuu u dhexeeyaa dhexbartankiisa markuu yaalo laba shay dhexbartankooda waxaa leenahay entre de hadduu dhankiisa midig uu yaalo waxaan leenahay ala derecha de waxaa waaye waa dhankiisa midig dhankiisa bidixna waxaa waaye ala izquierda de maxaa waaye waa dhankiisa bidix gudihiisa hadduu ku jiro waxaa leenahay dentro de waxaa waa gudihiisa banaankiisa markaa leenahay waxaa leenahay fuera de waxaa waa banaankiisa hortiisa markaa leenahay waxaa leenahay delante de waa hortiisa gadaashiisana markaa leenahayna waxaa leenahay detrás de u dhow markaa leenahay waxaa leenahay cerca de u dhow ka fogna markaa leenahay waxaa leenahay lejos de intaasi waxay ahaayeen 12 preposiciones de lugar ama preposition of place ama meeleynta goob haddaba waxaan isla qaadan doonaa tusaalooyinka tusaalahan waxaan u isticmaali doonaa saddex wax ayaan u isticmaali doonaa kan koowaad waxaan u isticmaali doonaa bisada keeda labka ah sidoo kale kan labaadna waxaan u isticmaali doonaa miis oo loo yaqaano la mesa kan saddexaadna waxaan u isticmaali doonaa caqa oo loo yaqaano box ama sanduuq ama wax loo yaqaano carton markaa leedahay bisada waxay joogtaa miiska korkiisa ama waxay saaran tahay miiska korkiisa waxaa leenahay el gato está encima de la mesa el gato está encima de la mesa bisadu waxay joogtaa miiska korkiisa taasi waxay waa joogitaanka kor markaa tilmaamayna hoostiisa haddii ku jirta miiska hoostiisa waxaa leenahay el gato está debajo de la mesa el gato está debajo de la mesa bisadu waxay joogtaa miiska hoostiisa miiska dhinaciisa haddii joogto waxaa leenahay el gato está al lado de la mesa el gato bisada está waxay joogtaa intii joogtaa al lado maxaa waa dhinaciisa de la mesa miiska dhinaciisa ayay joogtaa bisada okay bisada waxay joogtaa dhinac meel u dhexeyso kartoonka ama boxka saa u taqaan ama sanduuqa iyo miiska markaa waxaa leenahay el gato está entre de la mesa y la caqa bisada waxay joogtaa el gato bisada está waxay joogtaa okay entre meel u dhexeyso dhexbartanka de la mesa miiska y la caqa iyo waxaa waaye wax loo yaqaano kartoonka ama boxka ama sanduuqa intaba waa lagu fasiraa okay haddii joogto bisada dhanka midig ee miiska waxaa leenahay el gato está a la derecha de la mesa bisada waxay joogtaa dhanka midig ee miiska dhanka bidix ee miiska joogtaa markaa waxaa leenahay el gato está a la izquierda de la mesa bisada waxay joogtaa el gato bisada está waxay joogtaa a la izquierda dhanka bidix de la mesa ee miiska okay markaan leenahay bisada waxay ku jirtaa sanduuqa gudihiisa ama waxay ku jirtaa boxka gudihiisa ama waxay ku jirtaa kartoonka gudihiisa waxaa leenahay el gato bisada está waxay joogtaa dentro gudihiisa de la mesa de la caqa waxaa waaye boxka gudihiisa okay el gato bisada está waxay joogtaa dentro waa gudihiisa
de la caqa ee bokiska ama sanduuqa ama kartoonka inta u taqaanid u fasiro. Okay, markaan leenahay banaankiisii joogtaan waxaa leenahay el gato bisada está waxay joogtaa fuera de banaankiisa la caqa ee bokiska. De la caqa maxaa bokiska. El gato bisada está waxay joogtaa fuera banaanka de la caqa ee bokiska ama sanduuqa ama kartoonka. Okay, markaan leenahay bisada waxay joogtaa miiska hortiisa waxaa leenahay el gato bisada está waxay joogtaa delante waxaa waaye hortiisa de la mesa ee miiska. Bisada waxay joogtaa miiska hortiisa, gadaashiisa joogtaa. markaan leenahay waxaa leenahay el gato bisada está waxay joogtaa detrás de mesa waxaa waaye de la mesa miiska gadaashiisa ayay joogtaa. El gato bisada está waxay joogtaa intee joogtaa detrás waxaa waaye gadaasha de la mesa ee miiska. Okay, markaan leenahay bisada waxay joogtaa wax loo yaqaano meel u dhow miiska ama meel u dhow wax loo yaqaano miiska aan iska dhahno. tusaale ahaan waxaa leenahay el gato bisada está waxay joogtaa cerca meel u dhow de la mesa miiska. meel u dhow miiska ayay joogtaa. miiska laga yaabo inay cunto yeelaan oo wax yeelaan hilib yeelaan bisada looga cabsanaya. marka u tilmaamaysa waxaa leedahay el gato bisada está waxay joogtaa cerca meel u dhow de la mesa miiska. bisada waxay joogtaa meel ka fog miiska. markaan waxaa leenahay el gato bisada está waxay joogtaa lejos de la mesa meel ka fog ee miiska. waxay joogtaa meel ka fog ee miiska. marka waxaa leenahay el gato bisada está waxay joogtaa okay lejos waa ka fog de la mesa miiska. meel ka fog miiska ayay joogtaa. waxay ahaayeen waa prepositionadii qaarkood aan ku tusaale qaadanay bisadii iyo miiskii iyo tusaalaha kaleetana saddexaad aan ku qaadanay ahayd bokiska. saddexdaas ayaan tusaale ahaan u qaadanay. laakiin waxaa la isticmaali karaa wax intaas ka duwan. mukulaal kaligeed kuma koobno, miis kaligiis kuma koobno iyo bokis kaligiis kuma koobno. wax waliba oo meel dul saaran ama meel yaalo ama u dhow ama ka fog ama hortiis yaalo ama gudihiis yaalo ama banaankiis yaalo markaa ku tilmaamaysa sidaas ayay ugu tilmaamaysaa. marka kuwaas waxaa loo yaqaana preposiciones de lugares oo ah meeleynta goob. marka goob aad tilmaamaysid ama meeleynaysid goob kale uu ka yaalo shaygaas. ingiriiskana waxaa lagu yiraahdaa preposition of place. in la fahmayaan rajeynayaa. haddii wax su'aal ah ka qabtid ama jeclaan lahayd meel laga jaahil bixiyo fadlan dhanka commentiga kusoo qor. haddaa hore subscribe u saaran channelkana fadlan subscribe saar. insha Allah waxaan isku dayi doonaa sanadkan cusub oo Ilaahay nabad noogu dhaliyay inaan muuqaalo badan aan soo geliyo. taasuna ii noqon doonto dhiirigelin. subscribe-kaaga, like-taada iyo commentigaaga. walaalkiin Engineer Kaafi Cabdullaahi sidaas nabad geliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.